السلام عليكم كسو dhawaada li Amirat Channel maanta dabeel xun baa dhacayso ani Amiran waxaan ku soconaa shaleemada marka soo baxana si raaca insha Allah shaleemada marka geey kadib shaqaan tagaya laakiin maanta shaleemada la soo raqiisay waliba qaybta caruurta soo waxaan rabaa Amir inaan geeyo so she's gonna have so much fun insha Allah abaheedan soo doonay markuu imaado waa sii bixi doonaa wuu soo socdaa hadda baawurkiisa soo socda marka ala isku dhici rabeen Hello. Amira, venta, venta. waxaan imaanay meesha cinemada filimka daawan doonana waxa waaye Operation Power saidin sheegay mise Hooper saladaha waxa waaye filin oo very funny ah aniga san ka arka xayeysiinta zaid maanan u fiirinin maadaama waqtiga awoodnay inaan cinemada aadno filimkana jiray so I was like okay midkana dooranayna midkana aadayna and then this time waa markii saddexaad oo Amira cinema la geenayo si u dhalatay ilaa hadda every time aatagno cinemada waxay ahayd success it was very successful all the time sababtoo ah film daawashada caruurta way jecel yihiin and then snacks marka uu sii dirsid cabitaan iyo daango cuno iska galaan ma aragti ma ku xasuusanayaan iska fiirsanay horeetay idinku sheegay maalintan waa la soo raqiisiyay filmaanta oo dhan laakiin ani waxa u maleynayay ina meel walba la fariisan karo meel walba maysan ahayn waxay dhaheen kuraasta dhexe iyo kuraasta u hooseysa dadka fariisanayo ugu raqiisan kuraasta u koreysa laakiin hadaa rabtid inta fariisatid way ka qaalisan tahay aniga I did not know about that information laakiin saa hadda meeshan arkaysiin we are getting candies nacnac baanu jecelnahay all the time maalinta waa la soo kaca hooy nacnac maalintiisa goormee waay maalinta nacnac la cuno maalinta nacnac la cuno waa taqaanin waa sabdiga mise axadda dadka badankooda waxay dhahaan labada maalin ba hal iskugu daro laakiin waxa ku dadaalaynaa inaa maaragtay hal maalin isbuuci nacnac la cuno haddii saas tahay nimada waxaa kaloo ku jecelahay like snackskooda iyo cabitaanadooda waxyaabaha badankooda oo dukaamanka laga helo ma ahan waana waqti ma aragtay oo aad iyo aad maaragtay deganaasha ah ku qaadanaysid tartiibkaaga daanga iska cunaysa cabitaana iska cabay filna iska fiirsane it's so relaxing hada ani weydiisid waa waqti la nasto marka film kala aado. So as you guys see, I am getting some candies for Amira and she is probably so happy by this time. The other thing is marka qaarkood marka guriga jooga ku caajisa dareemo maanta maxaa qabataa intee geysa the movies waxa waaye meel ma aragtay ii sheeg all the time aad tagi kartid oo waqti lagu soo qaadan karo so hada toddler haysatid oo 3 jir mise 4 jir ka baqaysid inaad shaneemada geysid ha ka baqayn gay filmaanta ha soo fiirsadaan way jecel yihiin ilmaha they love watching things wada ognahay and then marka maaragtay shaashada weyn la geeyo wayba dhaxgalayaan they love that so aniga daangada aad u jecelahay waxa aad u si jecelahay midka oo butterka idinka kee jeceshihiin markaa cinema aadin because hadda flavor kala duwanaa la keenay waxaan arkaya xatee flavor oo macaan ani kuwa macaanka ma jecli kuwa dhanaanka aniga aan maaragta aad u jecelahay haddana cabitaana soo qaadanaynaa mashiinay haysan meeshan oo cabitaano kala duwan oo maaragtay 60 xabo kala duwan aad dooran kartaa midka haratid waxa waaye maaragtay flavor oo dukaamanka kale talaga helin oo meesha cinemada bas laga helo so shout out to Filmstar then for bringing these iconic drinks ay keenaan mar walbo and then you know it's amazing cunugaaga yar iyo adiga cinema ina aadin waxa jeclaaday ina idin la qaybsado arinkan aad u mahadsantihiin dad badan channelkay ku soo biiray ayaantii u dambeysay waana 7 maalin ka hor video soo galiyo cawada hadda videogan idin soo galinaya after I do the voice over I am so overwhelmed I am so happy kuligiina maaragtay subscribe channelkayga saarayo walaaltinimada iyo hadalada macaan ii soo qorayo that makes me so happy and it makes me you know inaan ku sii socdo wadada maanta aan hayo idin la qaybsado waxyaabaha nolosheeda aan qabanayo aniga maaragtay xasuus dhig ii tahay Soomaalidu badan waxay dhahan xasuus qor marka YouTube wax soo galiya xasuus bani ii tahay waxay kale xasuus u tahay gabadhayda waana wax aad ugu farxo waxa kale oo maaragtay maadaama aniga waalidkay isku magaalo aanan deganayn hooyada inay ii daawato aabahay inuu ii daawado walaalahay inay ii daawadaan qaraabadeed inay ii daawadaan that makes me happy so they know like aniga ina maaragtay aan nabad qabo
inkastoo maaragtay siyaabo badan iskula xiriira ay jirto, laakiin this is a way of like life memories aniga aan ku samaysanayo. Sheekadii oo guritaankanana waa wadnaa, still we're moving from the house to the new apartment sa ogtihiina dadka igu xiran, and I am working hard. Laakiin inaa gabadhayda banaanka u wada waqti la soo qaatana waxaa waaye it's a part of noloshayda. So maadaama saas ay tahay, I need to work hard and I need to idana inaa meelahay rabto aan geeyo oo waqtina aan la soo qaato, because adduunyada waxay ku dhisan tahayba waxaa waaye balance. So balancegaas baa raadinayaa mar walbo in maaragtay dhinacna aanan loo dhicin, dhinac kalena aanan loo dhicin, meel dhexdhexaad inaa la taagnaa karo, and you got everything in their place. So here sa arkaysiin naxna cunuga ku jirna. We love candies, guys, as you know, and we are going to be giving you a fit check very soon. Stay tuned. Thank you so much for watching. Allahumma barak, mashallah, mashallah, mashallah. The fit check is giving it. So let's go and watch what's watcha, guys? I mean, let's go and watch Hoopers. Sometimes when I do the voiceover ma jarjari, because you guys need to even know the reality of san uhadlo, because sometimes I say things that's very weird. Last time when I made the video on wahban, and then my husband, he was like, oh my god, why would you not cut that? I was like, because that's the way I talk sometimes. And yeah, so filimkan aad daawanayno waa very funny. Wuxuu ku saabsan yahay xaquuqda oo maaragtay xayawaanada, and we are bro xayawaano saa ogtihiin aad iyo aad u jecelnahay. samarkoo dhan waa baxnaa, waxaa ku dhahay xayawaanada buuga inta ku qorno waa soo tirinaa samarkan inta xayawaan aan soo arkeeno. So anaga maadaama xaquuqda xayawaanada aan u doodno, aad u jecelnahay filmaanta oo xayawaanada xuquuqdooda loogu dooday anagana inaan daawano. So that's a part of interest waxaa ku nahanay waxa aan xiisayno. So my loves, videogan like saara, share gareeya, walaalihiina la qaybsada, idinkana subscribe to Liamirat channel. aad iyo aad ugu faraxsanahay inaa hadda videogan aad daawanaysiin, inaa video badan aad daawan doontiin oo aan soo gelin doono. So filmka daawanayna aniga qaybtana favorite-kayga ah oo aad iyo aad u ciyaarayeen, and that was so funny and we loved it. So I cannot wait next time ay imaan doono cinemada, and I hope that filmaan badan oo caruurta loogu talagalay samarka inay soo bixi doonaan oo amiirna aan u soo wado oo idinkana ay idinla qaybsado insha Allah, ilaahay hadduu ka raali noqdo. waxaa kaleeto oo maaragtay videogan qayb ka ah the next day oo maalintii labaad ah oo maalintan ku xigtay. maalintan waxaa joogaa dukaanka la dhahayo Plantation. dukaankan waxaa lagu iibiyaa waxyaabaha gardenka iyo geedaha oo dhan baa lagu iibiyaa, waxyaabaha bas baa ka helaysa iyo ubaxyada. dukaankan waxaan kasoo doontay inaan gurigayga cusub balkanigiisa inaan flowers usoo iibiyo mise ubaxyo fiyoore usoo iibiyo. waxaa kaloo rabay inaan strawberries maaragtay plant gareeyo samarkan oo aad tijaabiyo. projectiga ah inaan strawberries aan plant gareeyana waxaa waaye qayb aan rabo gabadheed inay ka qayb qaadato. waxa ani iida samarka isla sameyno, biyo iskula shubno, xaaladooda aan fiirino inay noo noqoto. videona waa soo gelin doonaa arrinkaas ku saabsan. waxaa kaloo maanta sameyn doonaa baawurkeena inaan soo dhaqo. so waxaa tagay biilteemaha, waxaana soo iibiyey shaambooyinka hadda aa arkayseen oo idil kuligooda. marka kuwaa soo iibiyo waxaa ka mid ah kuwa textileka loogu talagalay oo lagu dhaqo marada baawurka dhexdiisa, kuwa loogu talagalay waxyaabaha caaga ah oo baawurka dhexdiisa ah intaa lagu dhaqo. waxaa kaloo geeya baawurka meesha lagu dhaqo, meeshaas waxaa kusoo dhaqaayay dacsaarada oo baawurka marka la wadayo lagu hala saaro, iyo waxaa kaloo kusoo dhaqaayay baawurka qaybtiisa kore. waxaa jirta meel baawurka markaa ratid inaad dhaqatid aad dhexgelin kartid oo maaragtay baawurkaada dhex fadhine waa damine asaa kuu dhaqaaya baawurkoo nadiif ah meesha kasoo dhexbaxaysa. laakiin meeshaas maanta maana rabin inaad tago, sababto ah waxaa raba dacsaarada baawurta inaad dhaqo. dadka badankooda nimankooda baawurka usoo dhaqo. ani xatee my husband he does that for me, alhamdulillah, but sometimes aniga rabo inaan sameeyo. I don't know, I just like to inaad tago aan soo sameeyo and take my time, alhamdulillah.
marka waa kasoo shaqeeyey waana soo qurxiyey alxamdulilah baabuurkana waa soo nadiifiyey waxaa maaragtay hadda samayn doonaa mar walbo 3 isbuucba inaa mar baabuurka dhexdana ka dhaqo korna maaragta aan kasoo dhaqo oo nadaafadiisa aan ku dadaalo maadaama ii sheeg gabadheeda hadda ay weynaatay kursigii horeetane oo markay ay jirta 1 sano bar loo soo gaday hadda waa ka bedelay kursi cusub uu soo gaday oo ilmaha da'deeda jiro oo kaleete ay ku fariistaan oo iska easy ah so yeah, I am working on making like my car's life better, and that was something, you know, and aad ugu xumaa ewel haddana aad dareensanahay still ina aad ugu xumahay and wallahi I need to get a trash can to oo baabuurka maaragta qashinka iyo wixiisana aan ku tuuro but my friend was telling me Shein iyo Temu ina alaabo fiican laga helo so I will try to look that and I will share with you of course marka wax soo iibiyo inshallah ilaa haduu i gaarsiiyo aanan aniga ka cayaarin oo aad iyo aad u jecelahay oo aad iyo aad nolosheeda aan ugu dadaalo waxaa kamid ah isku filnaanshahayga iyo maaragtay dareenka ah aniga qof dumar ah wax walbo aan rabo nolosheeda waa samaysan karaa qof walbo nolosheeda kusoo biirayo mise qof walbo nolosheeda ku jiro waa inuu maaragtay siyaabo kaleete oo iida mise asiga wato anigu farxin kara inay jirto laakiin ma aha waxa aniga samaysan karin inaa la ii sameeyo inaa farxad la iigu siiyo ani waxaan aaminsanahay anigoo qof dumar ah wax walba nolosheeda aniga aan damco mise aan rabo inaan qabsado inaan go'aankeeda aniga aan gaari karo aniga gacanteedana ay ku jirto anigana aan noqon karo oo aan qabsan karo waxa aan maaragtay aniga aan rabo whatever I desire oo nolosheeda kamid ah marka maadaama aniga aan haysto fikirkaas mar walbo waxaan rabaa inaan waxyaabo badan oo cusub aniga aan barto sidii maaragtay aniga aan u noqdo qof mar walbo isku filan oo isku filnaashada noloshiisana heer sare ka gaaray taasna waxay iga dhisaysaa in maaragtay kala daadashada tirada badan inay iga yaraato you know that I have all my things in the same place and the same basket inay igu wada jiraan ukumahayga oo dhan inaan maaragtay isku meel ku rito inaan ogahay maaragtay waxa aan u baahanahay inaan sameeyo saan u gaaro meesha aan rabo noloshayda marka aniga waxaan maaragtay gabar walbo Soomaaliya video daawanaysa walaashii kula talin lahaa wax walbo adiga maanta aadan aqoonin baro yaana lagu dhihin waxa nin baa sameeyo waxa naag baa sameeyo maanta inaa meel fariisatid qof ibni aadana waxa ka sugin wax walba adiga qabsan kartid oo karaankaaga ah oo ilaahay gacmo iyo lagu ku siiyey qabso abay macanto qof wax maanta ha ka sugin haddii ay noqoto inaa wax baratid haddii ay noqoto inay shaqaysatid haddii ay noqoto caruurtaada inaa meel adiga ratid inaa geysatid haddii ay noqoto waxyaabaha basiidka ah oo easyga ah oo keeni kara adiga noloshaada go'aamankeeda inaa gaartid yuusan qof ibni aadana maanta kuu tolinin yaana noloshaadana la kontroolin ahaw qof nolosha wadadiisa raacaya asiga samaysta subxaanallah maantadan la joogo waxaa arkaysaa gabdho badan oo jihada noloshooda ay rabaan inay qaadaan aanan ogeyn anaa kamid ahaan jiray everyday markaa hurdadeyda kasoo kaco waxaa maaragtay aan focus aan saara oo aan ku dadaala like clearness maaragtay saan u heli lahaa say nolosheeda ay u noqon lahayd mid waadax ah oo mugdi uusan ku jirin wadada aan rabo inaan raacana inaan ogahay oo maanta aanan maaragtay qof aanan ku tiirsanayn oo aniga kaligay aan isku tiirsanahay inaan maanta aniga isbixin karo inaan aniga isbadbaadin karo haddaan bahol weyn ku dhaco oo biyo ka buuxo inaan maaragtay ka dabaalan karo waa muhiim waa midda ugu muhiimsan oona ugu muhiimsan gabar walba oo maaragtay Soomaaliya gabar walba kaleete qof walba dumar ah inay maaragtay ay haystaan maskax keenaysa inay noloshooda isku filnaansho qurux badan oo ayaga u gooniya noloshooda inay dhisan karaan oo maaragtay ku tiirsanaashada dadka kaleetana ay iska yareyn karaan maanta gacmo wadajir bay wax ku geeyaan gacmaha la isqabsan karaa laakiin adigana mar walbo you can fight your own battles in life so don't be a loser in your own life be the winner ma fahamteen inshallah sidaas baa isku ognahay hadda shaqadeydii baan u socdaa there's a feeling aan mar walba dareemo shaqadeyda markaa u socdo I feel like inaa important ahay qof muhiim ah baa soo socdo that's the way I feel and I don't know am I the only one who feels that
adiga haddaa saas dareemtid qurxay noo sheeg why you feel special because aniga there is a feeling that I cannot explain wallahi haddaa run sheego ma sharaxi kari what I feel but I feel kind of important and I think I am important because why would I not get there like why would I work there if I was not important that's what I feel so alhamdulillah ilahi baa mahad iskale I am on my way to the work waxaa maaragtay rajeynaa idinka kulligiina inaa maalmo wanaagsan oo qurux badan aa haysatiin youtube-kayga ku xirnaada subscribe ii saara sheekooyin badan baan idin hayaa waxyaabo badan oo waxaa rabaa nolosheeda isoo maray inaa idinla qaybsado waxaa rabaa waxyaabo badan oo nolosheeda aa ka fikiraya inaa idin sheego waxaa rabaa maaragtay dumarka soomaalida iyo gabdhaha walaalahayga ina maaragtay sheekooyinkeena aan wada sheegno oo aan ka wada hadalno nolosheena iyo waxyaabaha anaga noo muhiim ah iyo sidaa isku garab istaaga lahayn marka aad iyo aaday muhiim igu tahay waxaana rajeynayaa wiil iyo gabarba qofka maanta videogan daawanayo inuu maaragtay uu dareemi doono aniga gabar walaashiis ah inaan ahay mise gabar walaasheed ah inaan ahay oo maaragtay kulligeenana dad walaalo ah aananay oo isku meel ka wada yimaaday aad iyo aadaan ugu faraxsanahay bulshaweynta Soomaalida iyo dadka walaalahayga ah kulligooda that is supporting me every day and I want to thank each and every one of you for watching my videos, giving me the subscribe, liking my videos. That means a lot and a lot to me. So we have a very important time coming inshallah samarka marka la gaado and I will be sharing with you so much haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo inshallah and yeah so aad u mahadsantihiin videogan maantay inaad daawateen waxaan soo gaarnay gabagabadii videogan waxaan isku dayi doonaa oo aan ku dadaali doonaa in maaragtay isbuucii hal video aan soo geliyo hadiisan aysan maaragtay laba aysan noqonin laakiin hadda dadaalkayga waxaa waaye hal video inaan soo geliyo isbuucii videogana xoogaa video dheer uu noqoyo adiga 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo kaleete and I hope inaa wada daawan doontiin maaragtay markaan idin soo geliyo marka hadda dharkaygii waxaan soo xirtay oo shaqada waxaan usii socdaa baawuurka rooba da'ay maalintan aniga roobku waan jecelahay laakiin markaan shaqaynayo oo maadaama dad badan aan booqanayo ma jeceli inuu roob uu da'o laakiin alxamdulillah gaarigii shaqadan hadda la soo baxaya idinkana meeshan buu vlogga maanta nooga egyahay vlogyo kaleeto qurux badan baan idin soo sameynaa idin soo gelina haddaa videogayga maanta kusoo gaaray abuu mise abaayo aada u mahadsan tahay inaad daawatay ha iga hilmaamin inaad subscribe ii saartid and I want to say thank you so much for watching my love and I will see you soon. You should take care of yourself and take care of your family and take care of everything. I will see you soon in the next videos. Assalamu alaikum. Bye bye.